doona oo Puntland lagu ugaarsan doono oo hantidii halka taale haduu hal santi ka maqnaado reerka u maqan muuqaalka kugu dul istaagaya ciidamada Istanbul ee beesha leelkase xerada Istanbul ku jira oo caawa mishaarka u dhacay ciidanka kale ee xerada barda dheere ee reebiciyaan iyagana mishaarka u dhacay ciidamadaas maadaama ay gaalkacyo ku sugan yihiin dawladda federaalka ay mishaar ka qaataan ma ku dhici kara inuu Saciid Cabdullaahi Dini iyagana uu weeraro maxaa ka dhici kara Boosaaso laftirkeeda xerada BSF oo ciyaalaha lacag loo qaybiyay oo leeyahay xerada BSF ee weyn ee magaalada Boosaaso ku taala ba iyadana nagasti ah xerada Saciid Cabdullaahi Dini waa tuu hore ugu fashilmay mar kale isagana ma isku dayi doona muuqaalka kugu dul istaagaya iyo xaaladda guud ee Puntland oo cagta saartay in hadda kadib loo kala argosto qabiil Puntland waxa ku dhisan tahay qabaa'ilo ciidamada Puntlandna waa qabaa'ilo saakana wixii la weeraray qabiil bi aayeen qabiil kalena weeraray mas'uuliyadaas oo dhan qaabkay u kala gudanayaan muuqaalka kugu dul istaagay ay wax soo socda ninkii waa saaka hadlay Soomaaliya warkaas si fiican u dhageysta intuu soo istaagay muu iska aamuso reer Cumar Maxamuud Dhooba dhiiqa galiyay oo sida gondabkii u isticmaalay oo nimanka Ismaan Maxamuud Bahdir oo maantayto dekana kala dhax dhigay bal muu iska aamuso ilaa isaga madaxweyne Soomaaliya u socday uu soo istaagay wuxuu yiri xerada BSF oo lagu soo celiyay gacanta Puntland waxaan ku maad celinaya saraakiishii howlgalka fulisay shacabkii wax bilaqaystay saraakiishii laftirkooda hantida iyo baabuurta qaadatay sida duwana gaaciye iyo dhaga weyne iyo ninka la dhaho Aadan Cabdixaashi oo saddex nin Cumar Maxamuud ay yihiin baan u mahad celinayaa biir oo hantida halka taalay oo Ismaan Maxamuud lahaayeenna bilaqaystay saas oo cad buu laakiin ninka sida leh oo maddo dhan dhageysanayso Puntland state of Somalia Puntland state kamid ah Soomaaliya ah oo haddana ku andacoonaya sababtan ciidankan u weeraray waxa ay tahay iyo xeradan u weeraray waxa weeye inay dawladda federaalka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka mishaar qaadanayeen sidaa darteed aniguna waxaan ahay ninka ku haboon ee Xasan Sheekh Maxamuud bedeli kara horta daaroodku waxay ka aqli badan yihiin hawiyaha su'aashaas anigu isweydiiyay waliba iyo Isaaqa qabyaalad cad oo aad u jeedo oo fool xun oo hawiye nacayba maantaalka la soo istaago buu haddana rabaa inuu ka dhaadhiciyo inuu magaalada Muqdisho u socdo oo isagu geeyo inuu madaxweyne ka noqdo oo Xasan Sheekh Maxamuud uu sageyn oo isagu wafiicaya ninka sida u hadlaya oo halkaas la tusoo taagan dawladda dhan ee Soomaaliya maadaama uu nin hawiyaha hogaaminayo waxaan diyaar u ahay inaan la dagaalamo waxaan diyaar u ahay meel kasto magacooda lagu sheego inaan weeraro waxaan diyaar u ahay inaan iska dhiciyo waxaan diyaar u ahay inaan Soomaaliya cagaa qabto haddana aniga Soomaaliya madaxweyne u doonanayo Soomaaliya madaxweyne ka noqonayo bal adoo bahdul baanta aqligaas inuu Soomaaliya dhexdeed ka shaqeeyay in kale laba sano ku dhimanay bal waa arki doonaa Xasan Sheekhna kursigan haduu adiga kaaga dego waaba ka fiican taadaaba ka fiican oo doqonnimada ku ogtahay hawiye aqli xumada ku tilmaamayso xoolonimada iyaga ku tuhmayso dhamaantood waaba dhabba hadaaba adoo saa u hadlaya Soomaaliya madaxweyne ka noqoto qodobkaas isaga khudbadiisa halkaas ugu gudbaya saaka xeradan horta Puntland shalay ma aysan dhisan reer baa dhistay Ismaan Maxamuud oo waliba Bahdir dhistay waxa weerarayna ninka Bahdul baanta amarka bixiyay ninka Asad Ismaan Diyaano iyo Saciid Cabdullaahi Dini waa isqoonsadeen shalayna iyaga kursi isku haystay koob markii kursiga Ismaan Maxamuud ku lahaayeen markii dambena magaalada Boosaaso ku dagaalameen waa soo kala calaf qaadeen Saciid Cabdullaahi Dini reer Puntland buu soo hor istaagay wuxuu yiri boqorkaygiyo hadaa si khaldan wax u arkay waraaqdii dikreetada haddaan soo saaray haddii lagu yiri dikreetadaan hooyada u geeyay Bahdul baanta ahayd haddii Bahdir oo antimaha ka jiri aan sida u dawladay wixina shaqeyn waayeen waa ka tanaasulay Maxamuud Ismaan Diyaano waxa ugu daray Maxamuud Ismaan Diyaano oo ah taliyaha BSF waxaan ka dhigayaa taliyaha Puntland Security Force Commando waraaq waxa soo saaray marxaati Allah ka ahayd qasaari meesha ka dhacay $3 milyan buwaaga bixiyay Dani oo nimanka Bahdir uu siiyay hadduu Dani Bahdir u socdo isagoo nin Bahdul baanta gobolka bari wada degan yihiin waa ku celinaya shalay ma ay daraad magaalada Boosaaso joogay ma uu saxan madaxtooyada xerada BMBF uu saxay wadada maxjarka oo u xiran tahay nimankan BSF taliska ugu weyn magaalada Boosaaso ku yaala ma uusan weerin halkaas oo ciidamo warsangaliya iyo ciidamo iishag BMBF iyo ciidamo qabaa'ilada kale ay oo BMBF ta u badan buu soo kaxaystay wuxuu soo keenay magaalada Gaalkacyo laba week ba tashkiilada halka lagu dajinayay 3 week wixii hub iyo gaadiid Puntland ayaan halkaas lagu daabulay madaxa iyo foodo waa la gelin waayay
halkaasuu oohin qabsaday oo yidhi cumar maxamuud oo idinka halkaa dhigeen taangiyaasha ku weerara xerada ii qabta saa yeela hantida taala idinkaa iska leh wax walba meesha yaalla qaata wax badan baa lagu yidhi tolkaa ka soo adkow haddaad tolkaa ka adkaanayso xerada boosaaso oo hantooda taallo oo hantidooda taallo oo cismaan maxamuud wax walba u yaalaan oo bahdir wax walba u taallo baad weerari lahayd laakiin adi cismaan maxamuud bahdir baanta ka dhex tahay horaa xerada lagaaga soo adkaaday oo reerbari iyo cismaan maxamuud iyo cid kastoo is wadata iyo puntland ay sheeganaysaa afka ciidda loogu soo daray inaad aadi karin aeroboortka boosaaso iyo dekada boosaasa ku xiran xeradaas waa isku xiran yihiin inta minooyin lagu garaaco oo hoobiyaal lagu garaaco baa waxaan ku yidhi xerada magaalada ku dhex taalla duur kuma taallo baa saa ugu ceebowday ogtaa inaad ugu ceeboweyso waxaa saaka nimanka cumar maxamuud dekanada ula aaday oo aad ceebta la okeeto kastumayaasha ay biliqaysanayeen iyo hantida ay biliqaysanayeen fariin cismaan maxamuud ka socota iyo bahdir ka socotaan cumar maxamuud maanta u wadaa hal kastuuma ah iyo hal kaba iska dhaaf rasaas iyo hub iyo hobiyaal iyo baabuur dhishikayaala iyo cabdibilayaal cusub iyo laabtoobyadii iyo kombiyuutaradii halkaa yaalla iska dhaaf inaad sii haysataane hadduu maqnaadaan ku yidhi fanaanad hadday maqnaato hantida boosaasa idiin taalla oo gobolka bari idiin taalla ha idiin iibisa raxaweyn iyo jareer iyo qabiilada kale xataa iyagoo iibinaya waa lagu dulduminayaa haddii qof idinka ah meeshii lagu arkana gacan baa la saarayaa fariintaas weeye fariinta ay maanta cismaan maxamuud iyo bahdir laisla qaatay in cumar maxamuud meel cad looga soo wada jeesto oo ay si cad isaga celiyaan oo bareer ah ninkan waa bahdir bahante kuma dhaco shaati dowladeed buu isticmaalayaa bahdir iyo bahdir bahantaas haya shaatiga waa shaati qabiil saakana ciddii uu dhiiqada geliyey cumar maxamuud baa aaday meesha ku fakar berri si kale haddaa hadalka u dhiga berri reer puntland dhan baa idiin jeeda berri markii lagu soo weeraro oo deegaanada gobolka mudug habargidir kaa kicisana adoo afka ku wada tolaayay hadhihi anuu nin ciise maxamuud aha markaa berri tiraada tolaaya waxaan ku leeyahay kuwii aad u bixisay xabaalaha riyaha oo 500 ahayd oo iyagoo futadaa difaacay markaa gabdhaha iyo wiilasha ka soo carartay kaarayaasha kuu qabtay oo meydkooda dabaqyada ka dul dhisatay ree aakhiraadka ciise maxamuud baa ku difaacaya anuu jawaabteedu waa intaas wey markaa berri adoo gabdhaha ka soo carray tolaayay marada igu celi shalaan kugu celiyay maalin dambe kugu celin maayo waxba dadkaa ku beer laxawsan haddii buurtilo lay keeno garowma nabad bay noqonaysaa waa ahaanaysaa boosaasna nabad bay ahaanaysaa shalayba adaa nimankaa ilaahay buurtilo u saxiixay anuguma saxiixin maalinta lagaa saarayna adaa soo ceshtay maalinta lagaa saarayna adiga weydin ka soo ceshtay kan maanta siciidka aad u yeelinaysidoo shalay waa ninkii farmaajo hawiye ka raacay buu ahaa maantana isagii baad u yeelinaysaa adiga isagu meeshaas geysaan dadka reer puntland waa sugi doonaan waxaan dul istaagayaa xeradaas leelkasaa ma la weerari doonaa horta leelkasa shalay waxaa ku ceeboobay faroole oo intaa ka xoog weyn puntland calan samaysatay oo dastuur samaysatay oo dowlad qaangaartay ku dhawaaqday oo gees taagan oo sanduuq gaara loo samayn rabo oo cirkaa maraysa heesaa ugu macmacaan oo puntland loo qaado calankii puntland baa ku yaal cirifkaaga iyo ku dayo puntland ku dayo rabbo cabsidaada cidlo u fadhiyayo soomaaliya cayme xilliga faroolaa la qaaday hal hees oo isaga si gaar loogu ammaanay lama qaadin inta ka dambaysa cabdiweli iyo mulaaxana maalin kasta heese lagu ammaanayo mulaaxa sababtoo ah maanta waxaa laga shaqeeyaa dan shakhsiya shalayna dan guud oo soomaali iyo puntland laga shaqayn jiray leelkasta maalintaas lagu ceeboobay oo kabaha afka lagu soo qaaday oo raaligelin laga bixiyey oo saraakiishu ku dhaawacantay maanta nooshahay reer bicdiyahana iyaga warkoodaba iska daa nin ku dhaca oo aadi kara oo gobolka mudug jooga oo bajeerteena oo ag mari kara maba jira hadda kuu sheegaya jimcaala soo haray jimcaala ciise maxamuud oo dhan baa ilaahay wax ka baryaa in la weeraro hubka la qaato ciisaaba ilaahay ka baryayo ciise maxamuud ma mideysna xabadii mideyn lahayd baalka ka soo socota alla waxaan habeen walba ka barinaaba inta dowladda ku jirta ee maalin walba odayga faroole iyo tiimkiisa iyo kuwa dowladda ku jiro dowladda puntland waa dhaqaaqda xoogaa mishaarka ee xeesanaya baa inuu mishaarka u dhadhamay iyo in kale